kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelan doono Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo dhawaanta nagu soo booqday stuudiyahayaga magaalada Hague ee dalkan Netherland. Professor Samatar, habeen wanaagsan ku soo dhawo barnaamijka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waad mahadsantahay walaal. Intaynaan hadalka gelin waxaan jecelahay inaan halkan salaan uga diro dadka Soomaaliyeed ee adduunyada ku nool ee Dalmar Media iyo Star TV programkoogan daawanaya. Khaasatan waxaan salaan khaas oo diiran u dirayaa dadka reer Somaliland meel walba ha joogaan. Saxaafadda Soomaalida baryahan dambe aad ayaad uga soo dhex muuqatay. Waxba lagu tuhmayaa mise wax si kama u dhacay. Saxaafadda iyaga weydiin doontaa taas. Waxaan say isleeyahay waxay la mid yihiin saxaafadaha adduunyada oo kale telefishinka, raadiyoga, jaraa'idka. Marka had iyo jeer iyagu waxay raadinayaan dad ay waraysi ka qaadaan oo siiya malaha wax faala amba war cusub siiya oo marka dadku ay u soo jeestaan tartanka ay ku jiraan jaraa'idku. Jariidad walba jariidada kale la tartamaysa, telefishinku kale la tartamaya, raadiyoga kale la tartamaya. Marka inay tartankaas ay ku jiraan marka waxay malaha laga yaabaa inay tiraahaan Professor Samatar waxa laga yaabaa dad wax ka qaadaan su'aalo aad weydiisaan kuwa adag kuwa jilicsan aad weydiisaan waxa laga yaabaa inay dadku soo joogsadaan marka leedin dhageysto because iyagu waxay rabaan inay dadka soo jiitaan taasaan inteeda badan u maleynayaa inay tahay iyo arrimihii siyaasadda ee Somaliland oo soo karaya oo waqtigii doorashooyinku ay soo dhawaadeen taa la fahanteeduna waxay gelinaysaa dhalinyarada jaraa'idka iyo saxaafadda iyo telefishinada iyo raadiyoda ka shaqeeya inay halkaa isha ku hayaan waana taasina waa wax caadi oo marka waqtiga caynkaasi uu soo dhawaado. Su'aalaha inta badan ay ku weydiinayaan waxa u badnaa mowqifkaagii Soomaali weyn iyo xisbigaagii Hiil Qaran. Su'aalaha marka la weydiinayo miyay ku dhibaan? ima dhibto xaasha ima dhibto inkastoo jawaabahaygan ku celceliyay oo laga yaabo dadku inay ku daalaan amba ay ilaahaan waa horaan u maqalnaytan aniga Hiil Qaran waxa weeye xisbi xagayga qiimo weyn ku leh arrin aad iyo aad u qiimo weyn oo ummadda Soomaalida oo dhan taabanaysana mustaqbalkeegii ayatiinkaygu wuxuu noqonayaa hawsheeda galay xisbiga Hiil Qaran dad waaweyn oo magaca wadanka Soomaaliyeed kule qaarkood waaba geeriyoodeen iyo dhalinyaro fara badan oo professional ayaa xisbiga ku jiray anigana wax badan baan ka bartay sida xisbi loo dhisaan ka bartay sida dastuur loogu sameeyaan bartay sida loola shaqeeyo dadka noocyo badan leh yar iyo weyn haween iyo rag kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baran nooc walba leh sida loola shaqeeyo ayaan bartay sida maxaan ku rahay doorashooyin looga qayb galo xisbi loo hogaamiyo ayaan bartay marka wax weyn baa halka iga kordhay Hiil Qaran sharaf weyn way ii ahayd dadkii halkaan ku saaxiibnana wali saaxiib baan nahay laakiin waxa aan ku kala tagnay xaggii siyaasadda kale tagnay ma ahe aniga waxay la noqotay siyaasadii Soomaali weyn xamar fadhiday in ay kolka meel laga soo qabta aanay lahayn waqtiga kan lagu daalayo rajo la'aan baan arkay marka bal inaan amba wadanka intan Mareykanka iskaga noqdo halkaas iska seexdo oo nolosheeda wanaagsan iska wato iyo inaan dadka reer Somaliland ee muddo badan baaqay halkan waxaan ku haynaa wax kale ka duwan kuwa kale lahaa inaan indhahayga ku soo arko waan soo arkay wax wanaagsan bay wadaan marka waxa ay gashay didiila inaan ka qayb galo socodka oo aan garab siiyo iyagana aanu dib isku barano marka Hiil Qaran sidaas ayaan u xusayaa laakiin aniga noloshaydii iyo siyaasadeedii maskaxdeedii way bedelantay waxay noqotay mid Somaliland imika si buuxda u fadhida anagu maanta su'aalaha ku weydiin mayno ama arrimaha geli mayno waxay su'aalaha noqon doonaan maanta ama aan ka wareysan doonaa Somaliland balse waxaan ka wareysiinayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa socdaalkiisii ugu dambeeyay waxa uu soo booqday gobolkan Geeska Afrika gaar ahaan dalalkan Ethiopia iyo Kenya oo daris la ah Soomaalida socdaalkiisaasi saameyn intee leeg ayuu mandaqada ku yeelanaya Soomaalida muxuu ugu filan gobolka qiimo weyn bay ku leedahay oo Mareykanku khaasatan wadanka Ethiopia iyo Kenya labada wadan si gooniya ayuu Mareykanka dawladdiisu ay u indhaysaa oo indhaha ugu haysa Ethiopia taariikh gabowday ayaa ka dhaxaysa Mareykanka oo xitaa Haile Selassie ka horeysay
ayaa ka dhaxaysa oo dee waa kii maraykanku ku lahaan jiray saldhigga weyn Cagnew asmara agteeda waa kii ku lahaan jiray satellites iyo adduunyada laga fiirsado waxa socda iyo geeska Africa iyo badda cas wadanka Kenya dee waxa weeye wadanka maanta xarunta u noqday geeska Africa marka la eego khaasatan xagga baayac mushtariga iyo technology gaadiidka isgaarsiinta arrimaha caynkaas xoolo badan baa maraykanka halkaa ka yaala kambaniyadiisa dawladuna wax badan bay gelisay marka labaduba sidaas ay horta qiimo weyn Ethiopia iyo Kenya u leeyihiin waxa soo raacda Ethiopia oo adee xaruntii Afrika xagga siyaasadda oo dee waa halka xafiiska ugu weyn ee wadanka Afrika oo dhan ay wada leedahay oo la oran jiray OAU Organization of African Unity imikana la yiraahdo African Union AU de xaruntiisu waa Addis Ababa waxay la saaray berigii guul buu keenay dadkiisa halkaas oo xarun ka dhig Afrika marka halkaas iskugu timaada haddii ay doonayso madaxda Afrikada marka inaad aragtaan oo wajiga isku dhufataan oo wada hadashaan de halkaad ugu yeeran kartaa waa xarunta Afrika oo Addis Ababa AU taasina waa qiimo weyn bay Ethiopia siisay Kenya de waa halkii aabihii uu ka yimid uu ku dhashay ka yimid weey marka meel gooniya ayay de Kenya ugu xidhan tahay xagga Soomaalida waxa qura ee aad iyo aad la iskugu hawlaya waxa weeye arrintan argagixisada iyo nabadgelyada Maraykanku taas laba suul buu ku joogaa oo sidaas uu eegay 24 saacadood saldhigga weyn ee Djibouti laga dhistay inteeda badan shaqadeedu taas way oo Maraykanku ka dhistay marka danta kale ee Soomaalida siyaasadeeda waxaad moodaa in la fahmay oo la yiri taa waxba lagama qaban karo inteeda badan wixii lagu caawin karo hareeraha lagu caawiyo laakiin waxba qabsan maayaan arrinta ammaanka laakiin inaanay ku noqon khatar wadamada intooda kale ayaa aniga ka dhandhansaday waxaan se jeclaan lahaa aad iyo aad u jeclaan lahaa President Obama inuu Somaliland tago Hargeysa inuu tago oo Axmed Maxamed Maxamuud madaxweynaha Somaliland ay is arkaan ay sheekaystaan wadankana uu arko 4 saacadoodna ha noqoto intuu joogay uu arko inuu airportka Hargeysa ka soo dego oo dadku halka ay ku soo dhaweeyaan magaalada uu soo dhex maro madaxweynaha is arkaan hadduu doono magaalada ku soo yar wareego dalka uu arko inay ka duwan tahay inta kale inay ka duwan tahay Somaliland nabadgelyo xoog leh ay taalo dawlad dabahi halka ay taalo dad u soo jeeda wadankooga inay dhistaan halka ay joogaan oo marka tusi kara rajada dadka Soomaalidu inay soo noolaan karto Hargeysa ka marxaatiya iyo Somaliland taasan ku gubaabin lahaa inay suurto gasho madaxda Maraykanka Obama ugu horeeyay waqtigii inuu Hargeysa yara gaaro waan ka xumahay marka inuu taa aanu yeelin dhawaan Dr. Burhan oo aan filayay inaad taqaanaan ayaa hadallo saxaafadda ku soo mariyay sidoo aragtay hadalladiisaas de aniga dhibaato caynkaas oo ay ugu haysaa ma jirto dad badan baa markaan hadlo iga daba hadla waa caadi oo wax dhibaato kuma jirto waana dadku waa u bannaan tahay anigu ma galo dee dhulka idaacadaha iyo internetka dadka Soomaalidu ay amba ku kaftamaan amba ay isku caayaan amba ay isku xantaan amba waramada ay isku turturaan ma galo laakiin de meesh hadii la iyo waa iga faaloonaya waxaan ka hadlay waa iyaga de u taala taas anu Dr. Burhan aqoontayadu mid gundeer ma ah oo de Maraykan shirarkan iskugu yimi jirnay laakiin aqoon inta ka sii weyn iskuma aanan lahayn laakiin intii aan aqaanay waxa uu yahaa nin mutacallim weyn jaamacada waaweyn ka soo baxay si wanaagsan wax u bartay arrimahan ku saabsan psychology-ga iyo psychiatry-ga shaqadiisu ay ahayd oo doctoraa ku qaatay PhD buug wanaagsan oo weyn qoray oo finance fanon ninkii la oran jiray dhanna dhakhtarka maskaxda ahaa dhanna ahaa revolutionary Algerian War of Independence dagaalkii Algeria lagu xoreeyay Faransiiska lagaga xoreeyay fanon buu ka qoray buug weyn oo anigu waan akhristay imikana gurigu ii yaalaayo marmar baan reference ku sameeyaa marka Dr. Burhan daanu sidaasaan u aqaano qof noo tirsan xagga aqoonta ayuu ahaa laakiin de dhowr iyo 20 sanadood maanaan macaamilo maanaan yeelan ismaanaan aragba marka la dhaafo imaashahaygii Hargeysa sanadkan aan maleynaya inay ahaydna soo dhaafay ayaa maalin si lama filaan halkii hotelkii Mansour oo deganaa aniga oo qolo la jooga ayaa isagii qolo kalena ay soo galeen waanu is aragnay waanu is salaanay waxaan 2-3 daqiiqadood ka badnay intaas ayaanu isdhaafsanay muddo dhowr iyo 20 sanadood
marka hadda anu meel uu ku sugan yahay iyo 22 sanadood iyo ayatiinkiisa wuxuu noqday ma ogi waxaan safilayaa inuu nin caafimaad qaba oo sidiisii u muuqda inuu yahay anu ixtiraam weyn waan u hayaa taa halkaasaan dhigi talabaad aan ku darayaa waxa weeye anu waxaan ka hadlaa hadalkan malaha uu soo xigtayna uu yahay ee damqay siyaasadda dibadda ee Somaliland oo aan doonayo inay guul weyn keento oo 24 sanadood yaanu meel ku xidhanna waan ka daalnay meel ku xidhneenkii inaanu albaabku dusha ka xidhan yahay waanu ka daalnay ummaduna way ka daashay marka in laga hadlo sida arintaasi halkay ka jaban tahay iyo sida loo hagaajinayo waa su'aal waqtigeega muddo badan uu taagnaa anigu taasaan ka hadlay waan isku dayay inaan macneeyay waxa maqan waan isku dayay inaan soo dhigo ra'yi daweyn kara oo Somaliland siyaasadeeda dibadda leeyahay way fadhiid bay noqotay dhaqaajin kara ayaan soo dejiyay marka hadduu Dr. Bulxan hayo taaku ka duwan oo ina geyn karta dhulka aynu doonayno arrimaha ku saabsan siyaasadda dibadda waa public policy shakhsi ma waxaan jeclaan lahayn inuu banaanka soo dhigo marka hadday tiisu hagaagsan tahay oo ra'yi cusub oo hayo waan raacaynaa ummaduna way raaci halka maxaan ku rahay tartanku taagan yahay ummadda Somaliland waxaan jecelahay aniga iyo Dr. Bulxan labadayduba inaanu dadka iyo ummadaba jecelnahay si wanaagsan aanu jecelnahay oon doonayno in hore u socoto si badhaadho marka iyaguna nagama filayaan haddaanu nahay dadkii lagu tumiyay inaanu aqoon-yahan weliba joogaanu nahay waxay naga filayaan geeda dhaadheer inaanu ahaano ee aanan jaleelo noqon ayay naga filayaan marka taan halkaasaan ku dhaafay siyaasadda Somaliland si gaar ah ayaad baryahan isha ugu haysaa waxaad sheegtay in wax wada hadalii ay idiin socdeen saddexda xisbi kay kugu dhow maanta inaad ku biirto ma ogi ka ugu dhow oo anigu xisbiyada madaxdoodii ma ihi anigu se waxaan arkayaa saddexda xisbiba inay yihiin dad xisbiyada sharaf leh oo tartankii ka soo hadhay xisbiyada badan lagu furfurayay saddexdaas ka soo baxay mid walba quwad gooniya ayuu leeyahay sidaa awgeed baan anigu mid walba markay ii suurtagali karto aan madaxdooda salaamaa oon la sheekaystaa iyaguna su'aal ay weydiiyaan hadallo wanaagsan oo qurux badanna way dhex mareen saddexdaba laakiin ilaa maanta xisbi aan galay ma jiro waan sugayaa bal intaan inaan wax walba ka fiirsado ayaan sugayaa waad ogtahay oo xisbiga heel qaran markaan dhisnay doorashadii galnay waxyaabo badan baan ka bartay experience kaas way baray marka waxaan gaaray meel anima ka arki karo boholo qarsoon xagga siyaasadda oo heel qaran markaan ku jiray anaan ogeyn ayaan imaka ogaado experience kaas way baday marka waxa weeye inaad aan iska ilaaliyo inaanan boholaha ku dhicin weeyi xagga siyaasadda oo iska hubsato talaabo walba aad iska hubsato weeyi ingiriisku wuxuu yiraahaa once bitten twice shy haddaad gidaar amba geed gacanta saarto laakiin halkaa wax qaniinaya oo ku jiro janac oo ku jiro hangaraarac oo ku jiro oo ku qaniino waa lagu dagayo maad ogeyn inuu halkaa ku jiro laakiin haddaad halkii lagugu qaniinay haddana ku celiso adiga markaa istagay waa Soomaalidu waxay tahay mar daga Allah hadago mar labaad dagan ana istagay ma doonayeen inaan istaga marka waa inaad aad uga fiirsataa haddii markaa ay gali karto oo siyaasadda la gali karana waa la arki haddaan la gali karina waxa khayrkaygu yahay dibadda in laga joogo tuhum in aad kulmiye ku biiri doontaa iminka suuqa soo galay dareenkaas halku salka ku haya bad maays ma ogi waxaa laga yaabaa dadka inay ay iyagu si gooniya xisaabta iskugu dardarayaan oo shaxda iskugu dardarayaan anigu si ma garanayo xisbigu waa xisbi laakiin weyn oo wadanka u taliya marka waxa laga yaabaa dadku inay isleeyihiin qofkii rajo ka qaba siyaasaddu xisbiga ugu quwad weyn inuu qofku soo dhex joogsado xisbiga iyo madaxdooduna si wanaagsan bay igu soo dhaweeyeen wadanka saddexdii goor ee aan tagay marka halkaas laga yaabaa dadku inay ka ursanayaan in ay suurtageli karto xisbiga inaan ku soo biiro laakiin aniga casuumad xisbiga iiga timidna ma jirto aniguna albaabka xisbiga kulmiye maan garaacin weli marka dad baa is odhan kara xisbigu weli wuu bannaan yahay
oo dee golihii weli may dooran dadka madaxda u noqonaya. waxaan qabaa xitaa xisbiga wadani lafahantiisa aniga dee warka siduu isu gogaaray wax laga yaabaa qaldanahay. isaga lafahantiisa golihii dhexe weli iskumay iman oo tala may goosan halka ay marayaan iyo cidda uga qayb galaysa dee doorashooyinkaas soo socda. marka isaga lafahantiisu albaabkiisu inuu furan yahay baa laga yaabaa, laakiin dee waa in la hubiyo ay noqonaysaa. laakiin shiran ogahay weli muu dhicin. marka labadaba sidaas ayay u bannaan yihiin. waxaan qabaa xisbiga qura ee laga yaabo inuu magacaabay dadka doorashada uga qayb galaya inuu yahay xisbiga saddexaad ee ucud la yidhaaho ayay ila eg tahay. marka hadaynu aada u eegno bilaha soo socdaa waxay keeni doonaan. haddii maanta hoggaanka somalilan aada ku biiri lahayd, marka laga tago arrinka aqoonsiga, saddexda amuuradee ugu waaweyn eed xoogga saari lahayd waa maxay? kow waxa weeye arrinta ku saabsan wadajirka dadka reer somaliland. jamhuuriyaddaasu ma sii kobcayso, waana curyaami haddii wadajirka ummadaasi barig halka ugu fog iyo galbeed halka ugu fog iyo inta dhexe haddaan jamhuuriyadda sidaa la iskugu soo adkayn wadajirkeega oo dhiig cusub iyo dadaal cusub iyo vision cusub iyo cadaalad cusub aan la keenin, anu waxaan qabaa somaliland inay naafoobi. marka wadajirka somaliland iyo civic unity waxay xaggayga ka tahay number one, waayo hadday taasu kaa kala daadato ammaankiibaa markaa cidhiiri galaya, waxbana kuu qabsoomi maayaan. dadkuna hadday sii kala jeedaan ammaankuna cidhiiri galo waxba ma qabsan karaysa. taasi waa kow, wadajirka dadka somaliland jacayl cusub inuu dhex maro oo safar cusub la wada galo. two, talabaad waxay aniga ila tahay waxa weeye dhaqaale abuur. habeen qura si wanaagsan uma seexdo markaan ka fikiro dhalinyarada reer somaliland, maskaxdooda, fariidnimadooda, dadnimadooda, haddana adduunyadiina ka xidhan tahay wadankiina shaqo badan aanu u hayn. waa murugo weyn ba aniga taasi igu beertay. marka waa arrinta labaad ee markaaba u baahanaysa in la soo dejiyo new priorities, shaqo abuur dhaqaale dhis ah. muddo dheer bay qaadan doontaa, wax habeen iyo maalin iyo bil iyo laba iyo sanad markiiba lagu samayn karo ma ah. laakiin de waa in baabuurka maxaan ku rahay batroolka lagu shubaa salafkii oo la rogaayo injiinkii la dhaqaajiya. dhaqaale dhis oo haddii ay ugu horeyso wadanka infrastructureska in la dhiso, halkaasaa shaqooyin badan laga heli. waa dhaqaale dhis oo dhalinyarada shaqo loo raadiya, haddii kale badda isku soo tuuri amba wadanka gudihiisa ayay isku nici, dadkana ay nici, marka iyaguna wax kale iyo dhibaatooyin kale ay geli. taasi waa ta labaad oo badhaare dhaqaale haddii aan la helin ummaddu waa isnici. ta saddexaad waxa weeye arrimaha ku saabsan waxbarashada iyo caafimaadka, human capital. haddii aad dhisayso dad isku kalsoon oo karti leh, iyagaa wadanka markaa dhisaya, uma baahna dowladda oo inay had iyo jeer hor socoto. iyagaa la imanaya creativity iyo energy iyo imagination ayaa jira. marka saddexdaas ayaan anigu odhan lahaa, wadajirka somaliland, dhaqaale abuur iyo caafimaadka iyo iskuullada waxbarashada oo aad iyo aad ilgooniya loo saaro. laakiin de hawlo kalena way jirayaan oo in la qabtaa, laakiin kuwaas aniga priority noqon lahaa marka siyaasadda dibadda la dhaafo. maadaamaad arrimaha somaliland baryahan dambe aada ugu mashquulsan tahay, rajada somaliland iyo riyada kugu jirtaa ee kuu muuqataa waa maxay? waxa aan ku riyoon karaa oo marka riyada caynkaasi ugu dhacdo subaxii markaan tooso anigoo si kale ah ayaan adduunyadan iyo ag taalla u eegaa. waxa weeye iyada oo ammaanku intan kasii weliba wanaagsan yahay, iyada oo shaqo abuurkii aan kuu sheegay oo dhacay oo dadkii ay shaqo ku kala jeedaan oo qof walba qab cusub, isku fillaasho cusub, khaasatan dhalinyaradu ay heleen marka iyagu wadankii ay dhisayaan. iyada oo maxaanku idhaahayey ilaahay roobka wadanka u badiyey oo beerihii iyo xoolihii ay dheragsan yihiin. waxaan ku riyoodaa iyada oo siyaasaddii dibaddu ay noo furantay oonu adduunyadii isfahamnay oo adduunyadii ay noo timid, annaguna adduunyadii aan u tegino haddaan nahay reer somaliland, oo meel sare ay noqonayso aan ka gelayno adduunyada ayaan arkaa. waxaan ku riyoodaa dimuqraadinimadii oo la sii adkeeyey oo dadku ay aada u sii fahmeen. waxaan ku riyoodaa karti badan oo somaliland
meel walba karti ay taalo qofka banka fadhiya albaabkiisa iyo managerka qofka airportka fadhiya maxaan ku halka diyaaraduhu ay ka soo degayaan iyo customs iyo qofka managerka maxaan ku shaqadii wadanku karti ay socoto cadaaladiina ay noqotay kitaab cusub oo lagu dhaartay waxaasan ku riyooda waana dee visionka iyo umadi waxay tiigsanaysa weeyi maaha un sanad iyo 12 dee waa nolosha oo dhan baa inay sidaa noqoto sidaa loo jeesto waa waxa dee wadankan maanta aan joognay caawa aan ku sheekaysanayno ee la yidhaaho Netherlands waa waxa lagu yaqaan waa wadan yar oo 17 milyan oo qof ay ku nool yihiin haddana dee waad arkaysaa dee siduu u buuxo iyo siduu u socdo wax walba ay shaqaynayaan oo ummaddu ay wajigooga ka muuqato inay barwaaqaysan yihiin inay isjecel yihiin inay wadankooga qab u hayaan waad arkaysaa oo wada leeyihiin waad arkaysaa marka arrimaha caynkaas ayaan ku riyooda inay dhaboobaan dhinaca kalena waxa ku cabsi geliya ayaad ka warwashaa maxay yihiin waxa ka baqaa oo warwari gelisa Somaliland oo dib dhiiqa u gasha oo waxa la yiraahdo qabiilka foosha xun maaha tolnimada foosha xun ay noqotay grammar of politics waxa lagu nool yahay lagu shaqaysto ee dadku ay had iyo jeer hadal hayaan markay ka hadlayaan wadanka hawlihiisa talabaad karti daro qabiil iyo karti daro markay isqabsadaan ay noqdaan maxaan ku ilaahay ummad waxa iimaanka u noqda qabiil iyo karti daro labadaasna had iyo jeer way wada socdaan waayo qabiilku wax kala ma marka dambe aad eegto waa marmarsiyo lagu qarinayo karti daro karti daraduna marka waxa weeyi iyaduna muftaaxa qabiilka furta oo dee uma baahna dee inaad qofkan weydiiso qualificationskiisa iyo wuxuu qaban karo waa reehebel intaas kugu filan marka qabiil iyo karti daro ayaan anu ka seexan kari lahahay oo aan sidaa haday dadkii Somaliland halka dib ugu dhacaan way noloshu waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u baabaa waxa soo raaca dawaa cadaalada oo xumaata cadaaladu haday xumaatana dee islaamnimada laga tagay oo dee islaamnimadii cadaaladu way wada socdaan dawladnimadii cadaaladu way wada socdaan ilbaxnimadii cadaaladu way wada socdaan baraaraha iyo cadaaladu way wada socdaan cadaalad la'aana waan ka warwaraa hadiyo jeer iyo dee marka dambana ummadaasoo kala jajabta arrimahaas habeenkii hurdada ii diida waxaad ii sheegtay sidaad sheegtay qabyaaladu inay warwar ku geliso waraysiyada aad laga qaado inta badan dad badan waxay ka dhadhansadaan in aad reer abtiga si aad u ammaanto reer adeerka maxaad u soo qaadi weyd anigu waxaan qabaa labaduba horena waan u sheegay labaduba inay dadkayga yihiin waxaan filayaa labadubana inay sheeganayaan aniguna labadaba waan sheegtaa anigu marnaba kama ordayo dee dadka tolka kama ordayo qabiil iyo tol anu waan kala saaray cilmiyan beri hore anu qabiil shaqo kuma lihi waa wasakh aanad u baahnayn inaad sidito laakiin tolnimadu waa qaali marka haddaad leedahay dadka samaroonka aabaha iyo awowga ayay ka yimaadeen waa dad qaaliya waan ku faanaa waa dad ilbaxa ilaa saylac ilaa Djibouti taariikhdeeda waa la yaqaanaa dadkaas ilaa Ethiopia ilaa maanta waa la yaqaanaa ilbaxa kartile afgaaban cadaawada aan ku degdegin dadnimada jecel iskood wuxuu qabsaday kelmadda iska wuxuu qabsan la yiraahdo iyagay ka timid galbeedka magaalada Bonn hareeraheega ayay ka timid adigu isku tasho wax qabso iska wuxuu qabso Soomaalida kale way ku baahday marka dhan walba markaad ka eegto waa dad akhlaaq wanaagsan waan ku faanaa maxaan ku rahay anigana sharaf baan magacoogu ii keenaa iina keenay intaan soo noolaa taasi waa taas abtiyaashay iyo habaryarahayna aniga qaali iyo xaggayga ku yihiin waa nus naftayda soo deganaysa waan la soo koray waan ku soo koray way isoo koriyeen intaan gargaraadaystana naxariis iyo deeqsinimo moogi wax kale kamaan arag khaasatan markaad gabile iyo hareeraheega eegto ilaa diridhaba marka haddii la leeyahay dadka isaa qaale leeyahay amba dadka la leeyahay habar awal amba sacad muuse la leeyahay amba jibriil abukar amba reegii la qayaata haddii la leeyahay waa familigeygii weeye tolnimadooduna waa mid dhab ah oo anigu marnaba aanan ka tegayn hadday qaldan yihiinna waan u sheegi hadday hagaagsan yihiinna waan u sheegi
haddii laga gardaran yahayna waan daafici hadday gardaran yihiinna waan qabani adeerada iyo ilma adeeradayna sidaas leeg marka aniga formulahaygu waa equal soo adagmaysta dee islaamnimada ma kala jeclid qofku hadduu islaam yahay waa islaam marka dee waajib baa kaa saar dee tolkuna labada dhinacba aabbaha iyo hooyada anigu ma kala dooran karo qofka kala doora yidhaa dhaqanka kala doora yidhaahana waa midna casa oo wax kale ku jiraan oo marnaba aanan dhegaysan karin inta kale intaa raacinaya waxa weeye Samaroon iyo Isaaq labada community aniga ay dhalay tolnimo yaan u macnaynaya qabiil ma macnaynaya inkastoo anigu labadaba u hanoonsanahay laakiin labadoodaba wax ka weyn baa jira wax ka weyn labadoodaba ayaa jira waxa weeye ummadii dhammayd ee Somaliland ayaa ka weyn labadoodaba marka ugu dambaysa aniga loyalty-gayga iyo maxaan ku rahay halka aan dhiganayo kursigayga iyo masalahayga aan dhiganaya markaan ismacnaynayo amba aan hadlayo de waa ummadda ballaaran ee Somaliland amba ceeri gaabo iyo badhan ha deganaato amba sayla ha deganaato amba salaxley iyo duruqsi iyo berbera iyo burca iyo caynaba iyo hargeysa iyo gabil ha deganaato ima kala soona ummadda ballaaran ee Somaliland weeye halbowlaha ugu weyn iyo halka ugu weyn ee anigu aan haystaa abtiyaasha iyo adeeradayna taas ka weyn ugu dambeyntii hadiiba ay dhacdo inaad siyaasadda Somaliland aad soo gasho oo aad ku guul dareysato ma laga yaabaa inaad siyaasadda oo dhan faraha kala baxdo tani kulliba nolol baan leeyahay aan siyaasadda ku xidhnayn noloshaasuna waxa weeye tii academic ilaa intaan caafimaad qabo ee noolahay taa marnaba kama tegayo oo haddaan ka taga aniga maskaxdayda shaqaysa oo yaraanaysa marka taas waa insurance badan ka tahay policy academic life ku marka haddii siyaasadda aan galo I want to underline this if haddii aan galo wey dee kolleyba waxaan ku dadaali dee inaan guulaysto de aniga inta ila socota iyo xisbigaan socona inaan guulaysano haddayse suurtogeli weydo dee ilaahayba guusha haye waxa weeye markaa dee inaan hawlahaygii halkaan ka waday uun kasii wato aan haystay Somalilandna aniga way iga go'an tahay intaan noolahay waxaan la qaban karo inaan la qabto halkaan ka hagaajin karo inaan ka hagaajiyo taasi waxaan dib uga noqonaya maaha intaan noolahay markaa siyaasaddu waa iska temporary haddaad dhan ka eegto laakiin intaan nool yahay wadanka dhismihiisa iyo wax ka qabadashadiisa iyo in loo doodo taade anigu doorasho kuma xidhna iyo guul doorasho waa mid isaaran haddaan ahay qof reer Somaliland oo reer Gabley Professor Samatar aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga aad nasiisay waad mahadsan tahay Star TV-na uu mahadsan yahay iyo Dalmar Media dadkii reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed ee ballaaranba salaam baan iyagana u diraya reer Somalilandna waxaan leeyahay Allah idin la jiro daawadayaal waxaa intaa inoogu eeg waraysi gaarka ahaa aan la yeelnay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo nagu soo booqday studio-hayga magaalada Hague ee dalka Netherland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaan dhammaantayo idinkaga tegaynaa meel kastoo dunida joogtaan nabadgelyo